السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عبد الرحمن عبد الله حاج دبعسر وكسو المجالات كولومبوس أهنا مشرح كمدها مشرحين الصوماليين والتجريد شجدا مدحوينها عندك الصومالية هذا جاري أنكي وكشري أن كدوان أو إنه أنتاس ودعيو هو إسا كخير بدن أو أنفع ذلك يدك يدين تبع waxaan halkaan horeyntii ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto gaar ahaan maatada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed dhallaanka Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed culamaa diinka Soomaaliyeed gaar ahaan intooda qaxootiga ku adduunida dacaladeeda inta maaragtay tahriibaysa inta maaragtay hadii Ilaahay ku dhimay xabsiyada ku jira Ilaahay waxaan dhammaantiin in kaga baryayaa inuu dhibka idinka saaro oo inuu ugu bedelo barwaaqo bashbash iyo baraare sidoo kale ma halmaamayo horeyntii inaan maaragtay u mahadcelinayo dhalinyarada duubeysa cajalada walaalayaal marka hore waxaan naftayda iyo ummadda Soomaaliyeed nooc kasto ay tahayba aan ugu dardaarmayaa wax anfacaya adduun iyo aakhira oo ah inaynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsano وأنا كعب سياسنا ومدك أين أجارينا ورمر بتجليه عدالة برواقه دولة حقوق كالضمبين اسمها سأل بويري ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب والذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلهي سبحانه وتعالى كعب صنا معايا لما ضحنا مرك إلهي سبحانه وتعالى كعب صدان وحي جرانا يعني حق أن كل هي حق ضدك كل هي حق الدين كل هي حق dalkoodu bad birri iyo jawba uu ku leeyahay ka xildhibaanka ah ka madaxweynaha ka wasiirka ah ka gaashaandhigga jooga yani sarkaalka sare ah ka askariga ah ka macallinka ah ka dhakhtarka ah ka maaragtay ganacsatada ah yani ka dhalinyarada ah kood kulligeed markaynu Ilaahay ka cabsano nin walba wuxuu garanayaa xaqiiq ka saarnaa dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka cabsano qarankeennii inaga burburinay sida kulligeena ay wada ogsoonahay loomana kala harin culimo iyo caamo madax iyo minjo kulligeen dambiga waynu galnay sidii uu maaragtay uu yiri ama uu sheegay abwaankii caalamiga ah Cabdulqaadir Xirsiye yam gacan ku dhiigle yamaan ku dhiigle maskax ku dhiigle yamara ku dhiigle iyo dhabar ku dhiigle iyo kulli wada dhiigle ayaynu noqonay marka qabqablaka dagaalka kaliis inaynu wax ka sheegno ma laakiin kulligeen baa dambiga wada karnay musiibadiina waynu aragnay wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum hadira walaalayaal marka Ilaahay aynu toobad keeno inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim anigu marka waxaan go'aan ku gaaray inaan ka haro doorashada jagada madaxweynaha dalka Soomaaliya sababtoo ah horta kursiga kan hal qof budeeqa kulligeen nabad deeqo islaantii 9 jirka waxay madaxweynaha rabaa وقولك تمجرك أوحي المدحوين الرباح وكيوريها أوحي المعطي أو صحفيك أوحي المدحوين الرباح أو كي بروفيسور كان عنده أوحي المدحوين الرباح أو كي هدي لك قد ما قبلها قاتلك أوحي المدحوين الرباح أو هدي لك قد ما كي كان عصتها أوحي المدحوين الرباح أو أرض اللي كان عنده كل شيء أما هدي لك قد ما يشقينا هي أو غربة شوكتها أنت الضولي أوحي هدي لك قد مدحوين الرباح أو كي كورة والدمارة غربها أو هدي لك قد ما بدي بالربا صوت فين أنت حاجة ورد بورسوين قاطي أو طيح هدي لك قد ما بيروح أنا مدحوينه وسؤال كرسي كررت يوديقه كل يوم نوديقه هو ديقه هالقف بس ولا ريال هالقف مدحوينه أنا ما أدري إنه كم مدحوينه هو مسؤول ماذا هو ماشي هو قفك بني آدم كشركي وعقلي يمشينكي مطوركي هاي قفك بني آدم كأوكتشر وإنديه دقيه يعرف وكذا يعطيه ماشي كعنيه وهالك كان ومس مدح اللي قدر مدحوينه وهذا كون نوراده ومس شرف له والله كعبس له أو ناكسن وهليئة وعذكرة وحكمة له أو مارتي كشقي دنتا يمصلحة دلك سيدين تيسام يعني أمضى سهور بربي جاريسا هدول لكن وحماده أما أوليته أما أوصل شخصيات في عالهين دلك دين تيبا ويلوميا هدي لا يكون مهيو سيدنيك جبيبه وويري وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها موعد كلا فساد السيء ضلك يددك يدينت أنا هاي مدحهم إيوه هدي لا يكون مهيو يعني وذا دحهم مركا مدح ضي علماء هدي حمادان ومدي يعني خلاص
هذي هجاجان لبض أصله ومدي خير يبركو يوناك أي عدلا كل ما أي جاريسا ولا لي مرة كورس كل جينا مديقه مد خير طبعا وأنا يجي خير بدن ويجي شر بدن ويجي دين بدن ويجي عقل بدن ويجي حكمة بدن ويجي كرم بدن ويجي عادل قبيل كدونه ها تريد دقمة يتولد الدونه وكي ما ده إن هاتو إلهي سبحانه وتعالى ها الصخرة اللي ما نضر يهدي له كل من الصبح إلى الدورتي ماذا كاشان لقى قلب كسر بوليسك أنا يرى الصوماليات قرب شوكته حال مد كل جينا إنه كسرنا كو هرت كل جينا إنه إلهي توبت كنا إسعفينه هشينه قامها يسقبسنه دنتنا كشقينه دنت هو يمكن جيل الكسوس عليه المستقبل كنا هرمر كنا إنه كشقينه waxaan marka idin dareensiinayaa shisheeye ama ciidamada Afrikaanka ah ee hadii ay ku idmahay Soomaaliya jooga aan anigu waxba ka sheeginahay anaga u yaranay waxay ayagu tababarka waxa siinaya niman reer Yurub ah oo cadaan ah ayaa tababarka walaalayaal siinaya oo training siinaya oo mushaarkooda bixinaya oo dareeskooda bixinaya oo hubkooda siinaya waxaan idin leeyahay marka nimankaas iska daayay nimankaan reer Yurub runta u sheegay ninka madaxweynaha noqdo إن عيدمدين أينو تابرنا هو الدفاع بدي الصومالية بدي الصومالية سنوكتهين هذا تان عيدمدا كينيا إكسماية جلية أما جدا جلها أما بدي الصومالية مراكين تعرض الصومالية دخيرة يبابينا يهو human rights watch أي كاد اسمه عنده قلت واحد يوصل وحوي وبدي الصومالية شدال كيدي أنا يحرجتان واحد دين عضيني السال أوكتهين هدينا الأويسونين أوكسونادا أو كهرلا أو كديدية أو دفاع دولة الطليان واحد حرجان يسا بدي الصومالية بلوغيدا Soomaaliya ayay xaraajaysaa baloog la yiraahdo L21 23 iyo hadii ay ku dhmahayo 24 waxay ka gadaysaa hadii ay ku dhmahayo shirkadda la yiraahdo Eni ee Talyaaniga ah ee maafiyada ayay ka gadaysaa hadii ay ku dhmahayo balooga ama ceelka weyn ee shidaalka ah ee la yiraahdo L24 waxay ka gadaysaa shirkadda Faransiiska ee la yiraahdo Toro ama Total ceelka kale ama blogga la yiraahdo L25 ne waxay ka gadaysaa oo ka xaraashtay shirkadda la yiraahdo Andorka oo laga leeyahay dalka Mareykanka waxay jabisay heerarkii caalamiga ah ee United Nations ay gaareen oo maartay 8 maartay heshiisyada caalamiga ah oo Kenya ay saxiixday way ku tumatay marka Kenya ciidamada AMISOM baan ahay Soomaaliya nabad ka dhalinaya ninkii ku burburinayay war xalma walaalayaal waxaan leeyahay oo ku celcelinaya madaxda hadda joogta haday khayr u leeyihiin Allah soo celiyo hadii aysan dadka iyo dalka iyo diinta khayr u ahayn ilaahay kuwa khayr badan ha ku bedelo qabiilna waxba ina tari maayo qarankeena aynu dhisno ilaahay ummadii u gargaar oo heli aniguna waxaan doortay oo aan isu sharaxay oo aan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo shacabka Soomaaliyeed ee diyaarka u ah inuu madaxda Soomaaliyeed ku adeeco daacada ilaahay wa adeecu Allah wa adeecu rasuula wa ulil amri minkum madaxda ilaahay ka baqo dalkiina diinta difaaca shacabku noqda shacab hoggaansan oo dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda maslaxadooda ka shaqeeya ugu dambeyntii odayaasha alla xurmeeyo. Assalaamu alaykum.